السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. markii la halaagay reer caadi ku sugnaa Axqaaf waxaa jireen dad kale oo ku sugnaa magaalooyinka kale sida waqooyiga jasiiradda Carabta ay ku sugnaayeen reer Tamuud. Reer Tamuud waxay ka leexdeen tubta toosan sida reer caadi reer Nuux ay ka horeeyeen iyagaba ugu leexdeen wadada toosan. Saddexdan qoomna waxay ahaayeen kuwa iskaga eg awoodda, gardarada iyo caabudida dhagaxyada. Reer Tamuud waxay ku noolaayeen magaalada Xijir ee u dhaxaysa magaalada Madiina Munawwara iyo magaalada Tabuuk ee ka tirsan jasiiradda Carabta. Reer Tamuud markay ka leexdeen tubta toosan ayaa Ilaahay u soo diray Nabi Saalix oo iyaga la abtirsada. Nabi Saalix wuxuu u sheegay qoomkiisa reer Tamuud inay Ilaahay kaliya caabudaan iskaga tagaan dhagaxyadan ay waxay ku dhaheen Saalix oo had mid aan rajo ka leenahay intaadan la imaanin hadalkan maxaa yeelay waxay ixtiraam jireen Nabi Saalix intaan nabinimo loo dooran waxayna rabeen inuu noqdo mid ka mid ah taliskooda waxay dhaheen miyaad naga reebaysaa inaan caabudno waxay caabudayeen aabayaasheena Nabi Saalix ayaa ku yiri qoomkiisa hadday ii timid caddayn naxariis iyo shareecada xagga alle miyaan ka leexanayaa si aan ugu biiro taliskiina maamulkiina darteed yaa iga gargaaraya Ilaahay iima kordhinaysaan waxaan khasaare ahayn suurtagal ma ahayn Nabi Saalix inuu doorto qawaaniinta dadka dejiyeen oo ixtiraamaysa kan awooda leh ina bahdilaysa midka liita uuna ka doorto shareecada Ilaahay siiyay oo u kala garsooreysa bulshada keeda awoodda leh iyo midkeeda liita reer Tamuud waxay ku dhaheen Nabi Saalix miyaan rumaynaynaa hal qof anaga naga mid ah haddaan rumayno qof anaga naga tirsan waxaan ku sugannahay baadicad miyaana laga doortay hal qof laguna gaar yeelay diinta iyo dikriga taasina suurtagal ma ahan waa beenaale Nabi Saalix ayaa ku yiri miyi beenaale waxaan ahay rasuul Ilaahay soo diray idinkama rabo inay siisaan mishaar waxaan Ilaahay ka rajeynayaa ajar taliskii macangaga ayaa weydiiyay muslimiintii raacday Nabi Saalix ma hubtaan Saalix inuu yahay rasuul Ilaahay soo diray muslimiintii ayaa ku jawaabeen waxaan rumaynay wax la soo diray Nabi Saalix taliskii macangaga ayaa ku yiri annagana waxaan diidnaa ku gaalnownay waxa idinkaad rumayseen Nabi Saalix wuxuu xusuusiyay qoomkiisa reer Tamuud nimcooyinkii Ilaahay siiyay sida ilaha biyo beeraha u kala jaadka ah miraha iyo timirta wuxuuna u sheegay waxa ay sameynayaan oo nashqadeenta buuraha ah iyo sida gardarada ay u adeegsanayaan awoodooda wuxuu u sheegay inay xusuusnaadaan nimcada ayna ka joogsadaan fasahaadinta dhulka iskagana fogaadaan kuwa xag jirka ah aan rajo laga lahayn wax hagaajin ma uusan joojinin Nabi Saalix inuu waaniyo qoomkiisa reer Tamuud ilaa ay ku tuhmeen inuu yahay saaxir waxayna ka dalbadeen inuu la yimaado cadeen buuxda oo muujinaysa inuu run loo yahay Ilaahay ayaa waxyooda oo siiyay mucjizo Nabi Saalix wuxuu la yimid mucjizada la siiyay Nabi Saalix waxay ahayd hal geel aan dhalin cidna wuxuu u farfiiqay hashi kuna yiri tani waa hal geel oo ka timid xagga Alle waxayna ceelka ka cabaysaa biyo maalin gaar ah idinkan waxa ka cabaysiin maalin gaar ah wuxuuna ku yiri ha taawanina hasha ha ka daaqday dhulka Alle balse haddaad wax gaarsiisaan waxa idin yimaanaya cadaab markay diideen tawxiidkii reer Tamuud mucjizadii loo keenan ay arkeen ayay wili ku sii qanaceen waxay iska dhex doorteen midka ugu qalbi xun uguna shar badan si uu u boqon jaro hasha ninkii qalbi xuma ayaa wuxuu soo qaatay faas wuxuu boqon jaray hashii lagu yiri waa mucjizada waxayna dhaheen ha yimaado cadaabka markaas ayaa Nabi Saalix wuxuu ku yiri qoomkiisa Tamuud raaxaysta 3 maalin qura taasina waa balan aan la beeninaynin maxaad ugu degdegaysaan cadaabka haddaad istighfaartaan aad tooba keentaan waxa xaqiiqo ah inuu Ilaahay idin dambi dhaafo balse waxay dhaheen waa ku baasaysanay Saalix oo adiga iyo inta ku raacday idinkan uu sababa waxa nagu dhacay Nabi Saalix ayaa ku yiri khayr iyo sharba waxay ka timid xagga Alle balse idinka waxay tihiin dad uu sheedaan ku afuufay fitna reer Tamuud waxa ku dhex jireen 9 nin oo mooryaan ah oo loo yaqaan golaha sharta kuna takhasusay shirqoolka iyo wax kasta oo ku saabsan dulmin iyo shar waxay u fadhiisteen shir albaabyada u xiran yahay iyagoo ka tashanaya sidii loogu takhalusi lahaa Nabi Saalix waxay ku dhaarteen inay dilayaan xilli haween mugdi ah si aan cidna u arag waxay dhaheen waxaan ku dilaynaa si qarsoodi ah kadibna waxaan ku dhahaynaa dadka ka soo jeeda asaga ehelkiisa ah nagama aanan joogin meesha lagu dilayay balse intaysan gaarin waqti ay ku ballameen inay ka takhalusaan Nabi Saalix ayaa u timid fariintii Ilaahay sikadiis ah waxaa hal mar wada qabsaday reer Tamuud qaylo gariir leh oo xoogan markaas waxay ku noqdeen guryahooda kuwa jilba ka duudan aan dhaqaaq lahayn ruuxdayna ay ka baxday sida bal daadsan mooro oo kale Ilaahayna wuxuu ka badbaadiyay cadaabka Nabi Saalix iyo inta raacday muuminiinta Ilaahay wuxuu u sheegi jiray ambiyada markay soo dhowdahay cadaabka inay isaga baxaan magaalada la halaagayo sallallahu alayhi wa sallam ala nabiyina Muhammad sallallahu alaykum